waa qaybteennii buugga New Concept English Practice and Progress. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Passage 40 waa sheekadii afartanaad ee buugga New Concept English Practice and Progress. Waxaa ciwaankanaga ah Food and Talk, cunto iyo hadal. Last week toddobaadkii tegay at a dinner party, xaflad casho ah, the hostess sooreysada asked me waxay weydiisay to sit in aan fadhiisto next to Mrs. Rumbold. Miss Rumbold dhinaceeda. Miss Rumbold waxay ahayd a large and smiling lady, marwo weyn oo aanan dhoola cadaynayn, in a tight black dress oo labis madow oo ku dhegan qabta. She did not even look up, xitaa kor ma aysan ii eegin when I took markaan qaatay my seat fadhigayga beside her dhinaceeda. Her eyes indhaheeda were fixed on her plate. Waxay diiradda saarayeen ama ay ku sii jeedeen saxankeeda. Fixed on markaa asaga ah. Waxay ku go'naayeenoo meel kale ma aysan fiirinayn. Her plate saxankeeda. And in a short time, waqti gaaban gudihiisa, she was busy. Waxay ku mashquulsaneed eating cunida. I tried waxaan isku dayay to make conversation inaan la sameeyo wada sheekaysi. A new play is coming to. Ruwaayad cusub ama ciyaar cusub ba soo gelayso. The Globe soon ayaan iri. Wax ku saabsan dhulka ama caalamka koonkan. The Globe soon. I said ayaan iri. Will you be seeing it? Ma daawan doontaa ama ma eegi doontaa ama ma fiiri doontaa? No, she answered. Maya ayay kaga jawaabtay. In despair, anigoo ka rajo dhigay inaan su'aal kale wax kala weydiiyo. I asked her waxaan weydiiyey whether she was enjoying, inay ku raaxaysanaysay haddiina cashadeeda iyo in kale. Young man ayay tiri, nin yahow dhalinyarada ah. She answered ayay iiga warcelisay ama iigu jawaabtay, if you ate more, haddii aad wax badan cuni lahayd, and talked less, wax yarna hadli lahayd, we would both enjoy our dinner. Labadeena waynu ku raaxaysan lahayn cashadanada. Comprehension waa fahankan praises iyo dulucda kooban. Answer ka jawaab these questions su'aalooyinkani not more than aana ka badnayn 70 words 70 eray. Where did the writer xagee buu qoraagu sit fadhiistay at the dinner party xafladii cashada ahayd? Did he try ma isku dayay to make conversation inuu la sameeyo wada sheekaysi and not mise ma uusan isku dayin? Was she busy ma waxay ku mashquulsaneed eating cunista or not mise ma aysan ku mashquulsanayn? Did he talk about ma wuxuu ka hadlay the new play ciyaarta cusub ama ruwaayada cusub at the Globe or not mise muusan ka hadlin? Did he talk about ma wuxuu ka hadlay the holidays fasixii or not? Did she answer miyay kaga jawaabtay his question su'aalooyinkiisa briefly si kooban or not? Did he ask her miyuu weydiiyey if she was enjoying her dinner inay ku raaxaysanaysay cashadeeda or not? What did she answer? Maxaa ay kaga jawaabtay? Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Passage 40. Food and Talk. Last week at a dinner party, the hostess asked me to sit next to Miss Rumbold. Miss Rumbold was a large and smiling lady in a tight black dress. She did not even look up when I took my seat beside her. Her eyes were fixed on her plate, and in a short time she was busy eating. I tried to make conversation. A new play is coming to. The Globe soon. I said, will you be seeing it? No, she answered. In despair, I asked her whether she was enjoying her dinner. Young man, she answered, if you ate more and talked less, we would both enjoy our dinner. Comprehension and praises.
Answer these questions in not more than 70 words. Where did the writer sit at the dinner party? Did he try to make conversation or not? Was she busy eating or not? Did he talk about the new play at the Gallop or not? Did he talk about the holidays or not? Did she answer his questions bravely or not? Did he ask her if she was enjoying her dinner or not? What did she answer? Thanks. ألف لكم نبي